kulankaasi oo socon doona muddo 2 cisho ah waxaa ka soo qayb galay isuduwayaasha wasaaradda cadaaladda ee gobolada dalka xubno ka mid ah ciidanka asluubta booliiska garsoorka iyo xeer ilaalinta Ismahaan Xaaji Dool agaasimaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay in kulankaasi ujeedadiisu ay daaran tahay wax ka beddelka iyo dib u eegis lagu sameynayo xeerka garsoorka caruurta oo baarlamaanka Soomaaliland ansixiyay 2007 xeer lambar 36 وزارة العدالة اللهم صل على سيدنا محمد ضمان كسوق القلياش أو أنا كلسارين بهذه عدالة أما قعمه أي إسكاكاشلين عدالة هذين الرهن أو طن أيامات هالكم كسوق ساعات وسير وحكى ما أنت أيضا نصيب وناقنوعه إن إسكدوياش لحظة قبل إلى قبلي أي ما أنت أيضا أي هالكم ساعات وسير كسوقيهين taasoo maanta ujeedada shirka aynu isugu nimid uu yahay bal inaynu eegno oo aynu dib eegis ku sameeyno oo aynu wax ka bedel ku sameeyno oo aynu la fagurid ku sameeyno xeerkeenii la ansixiyay 2007 waxa ka soo wareegay marka la 2007 muddo yar ma aha 12 sano ayaa ka soo wareegay bal xeerkii inuu iska yaalo maahe bal maxaynu ku kaabi karnaa maxaynu ka bedeli karnaa meelaha iska hor imanaya sidaynu u isugu keeni karnaa aynu harmonization ugu sameyn karnaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Cali Cabdi oo kulankaasi furay waxa uu sheegay in mas'uuliyadi ka saaran tahay dhammaan qaybaha bulshada sidii loo dhisi lahaa caruurta isla markaana loo ilaalin lahaa dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin hogaamid doonta shacabka marka caruurta waxaan oran karaa waxay la mid yihiin waa sida siidka ama iniinta geedka oo marka dhulka lagu rido hadoo soo saaraysa geed aad u wanaagsan sidaynu caruurteena u dhisno ayaa berrito bulshadeena noqon doonta markasta waxaynu ku eegi doonaa il raxmad leh markasta waynu u naxariisan doonaa markasta waynu la dadaali doonaa kulligood waa isugu yeedhnay waxaan rabnaa sida Ismahaan hadda inoo sheegtay cid walba roolka ama qaybta ay ku leedahay inay ka qaadato hadday maxkamadaha tahay hadday booliiska tahay hadday xeeraraanta tahay hadday tahay wasaaradda cadaaladda cid kasta oo khusayso inay maanta roolkeeda ka duusho oo si fiican ka qaybgalka kale inuu soo saaro xeer wanaagsan oo la jaanqaadaya caruur wanaagsan oo bulshadeena berrito hogaamisa sidii aynu ku soo saari lahayd taas weeye qorshaheenu shirka taas baan isugu nimid markasta intaan maskaxda ku hayaa oo aan rabaa inaan ka fikirno waxa weeye inaynu inagu mas'uuliyadda qaadano inaynu caruurteena u dulqaadano inaynu markasta u dadaalno meel kastaynu joogno si ay maanta caruur fiican u soo noqdo xeerkanna maanta waad nafaguri doontaan si fiican uga bogtaa cid walba maanta qaybta ka khusaysa si fiican hadday doonto qoraallaha ku soo gudbiso waa kombayn garayn doonaa waa isu geyn doonaa xeer wanaagsan oo aynu ku dhaqanno ayaan rabnaa inuu noo soo baxo wuu qoran yahay laakiin waxbaynu ka bedelayno inagoo la kaashanayna sidii caalamku u dhaqno Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.